arrimaha qoyska iyo shaqageynta arrimaha bulshada iyo shaqageynta aad baan ku salaamayaa waxaan salaamayaa mudanayaasha ka socda golayaasha qaranka marti sharafta maanta halkan isugu timid martida ka socota hay'adaha ajnabiga ah ama samafalka halkan jooga marti sharafta maanta halkan isugu dhamaan waan idin salaamayaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu maanta aad baan u qiiraysnahay waxaan maanta markhaati ka ahay hawl ballaaran oo muddo dheer horteed aanu bilownay markii aanu bilownayna loo arkayay wax malaha aan midho dhali doonin inay maanta laga gaadhay go'aan laga gaadhayo soo dhaweynaya ciribtirka tacaddiga iyo dhibaatada loo geysto gabdhaha ee uu geysto gudniinka gabdhuhu waxaynu nahay ummad muslina waxaynu ka mid nahay qaarad ballaaran ummado badan oo diinteenna inala wadaagta oo sida aynaguba gabdhaheenna u jecel lahay wanaagooda u jecel lahay caafimaadkooda u jecel lahay mustaqbalkooda u jecel lahay iyaguba u jecel waxay hablahooda way soo barbaariyaan asluub iyo edab bay ku soo koriyaan laakiinse mindiya uma qaataan waxay aaminsan yihiin bikirka ilaahay ku abuuray inanta mindiyahaad arkaysa lagu jarjaray ama makiinada lagu jaray ama maqasyo lagu jaray waa isla goyntii uune waxay dhaawacdaa ama ay qarisaa bikirkii ilaahay ku abuuray ee uu inantaa ku asturayay ee uu inantaa inannimadeeda ku ilaalinayay inantaa wanaageeda sharafteeda quruxdeeda mustaqbalkeeda waxaa ilaaliya wixii ilaahay ku abuuray hilibkii bikirkii ilaahay ku abuuray ayaa ilaaliya oo ah mid haddii mar la furo aan dib loo toli karin waxaynu dhammaanteen ka markhaati nahay in gabdho badan oo qufulkaasu miftaax loo helay in hana dib loo toltolo waa gacan bini aadam ta ilaahayse ma ba'do bikirka ilaahay haddii uu dhaawac gaadho ma lumo ma tolmo waxaan doonayaa markaa hablaheenna inaynu ku ilaalino asluub iyo edab waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in wasaaradda arrimaha qoyska iyo shaqageynta iyo bulshadu ay soo riixday oo halkaas soo gaadhsiisay maanta meeshii lagu gaadhayay in tacaddiga hablaha loo geystay ee kufsiga in go-aan baarlamaanku ka gaadhay waxaan doonayaa in iyadana aan la ilaabin waayo waxaa la yidhi nin reer weyn iyo naag naaga ka umulisa labaduba waxyaabo badan bay iska ogyihiin in iyadaba dhibaatooyin badan inamada yarana la soo gaadhsiiyo waxaan doonayaa inamada qudhooda faraxumayn laga ilaaliyo sida hablaha loo badbaadinayo inamadana loo badbaadiyo oo weliba haddii ay noqoto in dhowr qof ay dhibaatada u geystaan inaan mid uun lagu qabanin ee intii dhibaatada geysatay dhammaantaas sharciga lala tiigsado waxaan doonayaa fatwadan maanta timid ama maanta lagu dhawaaqay waynu taageeraynaa waa run waa loo baahan yahay laakiinse waxaan anigu arkaa ooda dhacmeed se u kala sarreeyaan baa loo kala duraaye oodii sarraysay uun inay ahay in ee laga qaado dhibaatooyin badan ayuu geystaa nooca labaad iyo nooca koowaadba waayo hilbihii baa la jaraa bushmihii baa la jaraa haddii in badan baa naloo keena qodxan ku jabtay oo idhaa ka soo saaro kasoo gura in badan baa naloo keenaa gabdho kaadidu ka cishoontay oo u baahata in kaadii laga sii daayo bal male 3 iyo 4 cisho kaadi kaa ima weyda waxayna kaliftaa inaanu marmar xagga sare xundurta hoosteeda irbad la geliyo kaadi halkaa laga soo nuugo waxay kaliftaa in hablo badan oo dhiigga caadadu uu ka soo bixi waayay in qalliin lagu sameeyo oo xinjiro madoobaaday oo qurmay oo qurmuun oo dhowr bilood ku ururaya halkaa oo isku biirsaday in halkaa laga soo daayo
oo madow oo aad maalayo moodayso dhiiggaa madow ee laga soo daynayaa caabuqii uu reebay wuxuu gaadhaa xubnaha taranka ee gudaha ku jira meelaha uu beedku soo maro meelaha beedka sameeya makaankii iyo ilmagaleenkii buu saameeyaa waxay noqotaa inantaasu inan sida berito ay ubad u qaadaa ay adkaanayso waalidku wuxuu ilmo u dhalaa ilaahay ubadka u soo koriyo caafimaad siiyo ubad ka helo awow u noqdo adeer u noqdo abti u noqdo laakiin haddii hablihii loo geysto dhaawac ka hor joogsanaya siday berri ubad u qaadi lahaayeen dee dhaawac weyn waana kasoo kabayn baynu u geysanay dhibaatadeeda ay leedahay waxaan doonayaa inaynu hawsha halkaa ka sii wadno waxaan doonayaa inaynu ku dhiiranno go-aankan fulintiisa inaynu ku dhiiranno oo aynu meel marino waxaan idinku bushaaraynayaa in 22,000 iyo in ka badan oo haweenaba cisbitaalka ku dhalay in imika uu soo yaraanayo dumarka aan ka dhalinaa ee qaba gudniinka fircooniga boqolkiiba 75 ayaa maanta aanu aragnaa inay fircooni qabaan boqolkiiba 25 ayaan qabin fircooniga marka waxaad aragtaa in wacyigelintii ay mina dhashay in lagu soo dhiiraday in dad badani ay ka waantoobeen oo hablahooda dhibaatadii iyo googooyntii badnayd ee u geysan jireen inay ka joojiyeen daraasad labaad oo kale oo iyadana aanu ka wadno jaamacadda ayaa jirta oo saddexaad oo haddana qeexi doonta oo na tusi doonta halka maanta ay marayso waayo daraasadii koowaad 98 kiiba 100 ayaa fircooni ahaa daraasadii labaad 75 ayaa fircooni ahaa daraasadda saddexaad waxaan ku kalsoonahay oo aan hubaa inay tiro intaa ka sii yar inay na tusi doonto markaa reerka ka daaya gabdhahooda dhibaatadaas keli noqon maayaan waxay gaari karaan 3 meelood meel ahaan inay joojiyeen in dadkii joojiyeen aynu ku wadno waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa una hambalyeynaya walaashay wasiir Safiya oo u heshay nasiib u heshay inay noqoto wasiirkii muddada iyadoo ay wasiirka ahayd la gaadhay go'aamadaas hablaha la kufsado wax laga qabanayo kuwa gudniinka loo geysanayana wax laga qabanayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh